السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحب والخلان أصحابتي إذا شرفت لي كسر دوادا قيبتها برشاد عربية كبح ذا channel كأمان دور ما أنت 10 كوباد وحنكون برنا الضمائر معناه هو مقعوياله أولا مفهومها مركوبات نفهم كذا جود أي نبرنا ضمائرته وألفاظ وإريو تستعمل لو استعماله في الحديث هذا الكوديهسا لتدل سي أشيغان على أشخاص معروفين ضل قرنيو بدلا يجو بدل كأه وبوس كذا تشوجا من ذكر أسمائهم إن لا شيء مقعدوده إن مقعد دب لو شيء بدك اللي قرنيي أي بدل كيهين ثانيا والضمائر مقعيالدو من حيث دلالتها على الأشخاص والأشياء marka laga eego dhanka ku sheegida ee ku sheegayaan dadka iyo ashyaada tanqasimu ila thalathati aqsam saddex qaybood oo qaybsamaan همسة أما قيبت كوباد الضمائر المقعويالة التي تدل على شخص المتكلم تاسو كتسينيسا وكوشيغيسا قفك هالليا وتسمى ضمائر المتكلم وحنا لغو مقعابا مقعويالة قفك هالليا واستعماله أو المتكلمين أما ضدك هالليا استعمالان مثل تصالة أنا أقوم لعملي ونحن نحترم الغرباء أنا إيا نحن لبدا سبا وضمائر ومقعوياله لكن دنك قفك استعماليا marka laga eego waxay ku sheegaysaa inuu yahay qof iska hadlaya ama dad iska hadlaya ana mufradkiiba isticmaalaya qofkii kaligaha nahnuna waxa isticmaalaya dad badan oo iska hadlaya isticmaalaya ana aqumu anu waxaan u istaagayaa li'amali amalkayga shaqadeeda ayaan u istaagayaa iyo qabanaya ونحن anagu naxtarimu waxaan ixtiraamina al-ghurabaa dadka wadanka إن غريب كواه ودك أودلان باء الضمائر التي تدل على الشخص الذي تكلمه المقعوية لدى كوشيغيا قفك الله الليسو وتسمى ضمائر المخاطب وحنا لغو مقعابا ضمائر تا لو استعماله عدة لله الليو يقول وحيوقي بسمان لح قف الله الليسو أو لب يقف الله الليسو ددك لبقف الله الليسو أو لب يلبقف الله الليسو ددك dad badan oo Allah liso oo lab iyo dad badan oo Allah liso oo dhadige oo dumara marka aynu tusaalayaasha gallo anta adigagan wiilka ah muhadabun waxa tahay nin edaab la ayata adigagan hor taagan oo labi waxa tahay qof edaab leh antuma labadii naasi sadiiqani laba saaxiiba ayatihiin labadiina hor taagan oo waliba lab waxa tihiin saaxiiba ayatihiin أنتي أديكا قبري هاي قف يا دمرك يهرتاجني رائعة وحاتهاي قف دمر وناكسن ياتهاي أنتما لبدينا دمرك رائعتاني وحاتهين لبد دمر وناكسن أنتم إذنكو نمانتين كرماء ضد سرف الآياتهين إذن كان يهرتاجن جماعة مارتهاي لبكا وحاتهين ضد شرف له أنتنا قبلهنان بداني كلمات وحاتهين قبل شرف له marka ضمائر المخاطب yana waxa loo isticmaalaa cid la hadlayo lixdaasna ay u qaybsamaan anjim الضمائر magacyaalada allati kuwa soo tadullu ku sheegaya ala shakhsi alladhi natahaddathu anhu qofka aanu ka warhamayno fa huwa ghayru mawjud wa mid aan joogin amaamana horteena ay huwa ghaibun isagu waa mid maqan anna inaga naga maqan fi lahdati alhadith xilliga sheekadu ay socoto لذا سادرت تسمى وحالو مقعبا ضمائر الغائب مقعويالدا لو استعمالو عدة مقن الدبيانا وحاو قيب سمين اللح هو أو قف قرى أو لب أو كا مقن هي أو قف قرى أو ددق أو كا مقن هما أو لب قف أو لب أو كا مقن هما أو سلهما دي أو كالي أو لب قف أو ددق أو كا مقن هم ضد بدن أو لب أو كا مقن هن dad badan oo ka maqan oo dhadig hadaba tusaalayaasha aynu gudagallo huwa isagu waa qof qura ah oo waliba laba oo inaga maqan yacmalu wuxuu qabtaa oo shaqadiisu tahay saa'iqan darawalnimo huma labada qof ee inaga maqan ee labi akhawani waa laba walaalo way hum dadka badan inaga maqan ee labi ikhwatun waa walaalo way hiya yadu gabadha inaga maqani mutafawiqatun waa gabar sare way waa gabadh heer sare ah oo waxbarashada heer sare ku ah huma labada qof ay naga maqan ee waliba dumarka ay mashquulataani waa laba gabdhood oo mashquula way hunna dumarka badan ee naga maqani
غائبات ودمر مقan weeye halkaas ayuu inoogu joogayaa darsigeena maanta tan iyo intaynu ku kulmi doono barta tan waxaan idinka tegayaa amaana Allah si ay ku soo gaaraan casharada dambana fadlan channelka subscribe saar gambalaalkana furo asxaabtadana la wadaag assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh